munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano wasiiro maamulka gobolka Banaadir ururka haweenka degmada Waaberi ururka haweenka qaranka iyo dadweyne kale kaasi oo lagu qabtay taalada sayidka degmada Waaberi ee gobolka Banaadir wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya oo ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa waxa uu ku beeray geed mirood goobta ay ka socotay munaasabada gudoomiyaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Axmed Muumin Maxamed oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in maalintan ay qiimo weyn ugu fadhiso bulshada Soomaaliyeed waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay marka in gunaanadkii gabagabadii uu ka dhaco degmada Waaberi gaar ahaan labada meelood ee taariikhiga mar raba inaan hadalka ku dheeraado runtii waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa guddigii heer qaran ee runtii soo waday maalmaha 7 maalmood ah maantana ay gabagabadiisa ay tahay shaqada weyn ay soo qabteen waxaan garan karnaa runtii ahmiyadda ay leedahay in geed la beero waxay la mid tahay inaad malaayiin qof ama malaayiin nafley ah inaad noolaysa ayay la mid tahay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Sheekh Axmed Gaballe ayaa ugu baaqday bulshadu inay ka qayb qaataan markii ugu horeysay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxay u qorshaysay ummadda Soomaaliyeed barnaamij ku abaaran maalinta dhirta oo ah maanta oo bisha ay tahay 17 hase yeeshee loo qorsheeyay muddo 7 in lagu tababaro ummadda Soomaaliyeed lagu wacyigeliyo laga dhaadhiciyo dhulka inay leeyihiin inay dhistaan oo ay beeraan oo ay dhaqaaleystaan ay tahay waajib muqadas oo wadaninimo ah waxaan ka baranay wasiir ku-xigeenka in ummaddu ay ku shaqaysan karto iska wuxuu qabso iyadoo aan kaalmo shisheeye raadinin oo isku tashata xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Amiin Sheekh Cilmi oo ka hadlay goobta ayaa ka sheekeeyay faa'iidada ay leedahay dhir beerista dhirtuna waa ogtiin faa'iidada ay leedahay dhammaanteen waa ognahay dhirtu faa'iidada ay u leedahay alxamdulillah xilli fiican lagu soo aaday xilli roob leedahay magaaladu xilli qabow dhirtuna waxay insha Allah tacaala dad iyo dunyaba way anfacsadaan oo ogtihiin waxyaabo badan laga sheegay culimadu ay ka faaleeyeen faa'iidada dhirta marka dadaaranka gudoomiyaha gobolka ahna doqon magaalada waxay ahayd in dhammaan dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho nin iyo geed qof iyo geed in la beerto in geed la beero maanta wixii geed loo yaal xataa dadkan intaan joogno in hal geed aan u qaadano si aan u beerno guryaha loogu beero wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ahna kusimaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dhirta iyo daaqa Cabdinaasir Gaarane ayaa sheegay in maalintan ay ku weyn tahay bulshada Soomaaliyeed loona baahan yahay in qofkaas uu ka qayb qaato beerista dhirta waa sharaf weyn oo adiguna sharaf weyn ku ah munaasabadan toddobaadka dhir beerista ma aha maanta in la khatimayo bal waa maalintii loo asteeyay in ummadda lagu baraarujiyo in la talaalo geedo laakiin maanta waxa weeye toddobaadkii baraarujinta ayaa maanta ku eg marka baraarugii 7 maalmood la soo waday maanta uu guddigu shaqadiisa ku eg tahay baa waxaan rabnaa in ummadda Soomaaliyeed ay u aragto toddobaadkaas dhirbeerista in la dareemo dhirta qiimaha ay leedahay iyo waxa ay noogu fadhido oo qof walba Soomaaliya u geed beero mudane wasiir dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo gobollada dalka ayagoo runtii ka tusaale qaadanaya wacyigelintaas tirada badan ee guddigu uu sameynayay iyo wasaaradda ayaa maanta sidaan oo kale loo taagan yahay in la weyneeyo maalintaan oo la xuso lana weyneeyo maalintan qaran ee dhir beerista 17 Abriil si dhulkeenna quruxda u lahaa duurjoogteennii raxanta u noolaan jirtay ee aan lahayn innagu sharaftii iyo qiimihii dhulkeenna nabaad guurka ku dhacay si looga baxo meel walba ay u noqoto meel madow oo qurux badan oo lagu raaxaysan karo oo indhuhu soo jiidanayaan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareye oo gabagabadii munaasabada ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshadu inay ka shaqeeyaan horumarka dalka ayna ka qayb qaataan beerista dhirta muhiimadda dhirtu leedahay waxaa hore looga sheekeeyay waa nolosha bini'aadanka oo dhan weeye marka laga fiiriyo noloshiisa waxa uu ku nool yahay waxa uu ku neefsado ama hawada uu qaato bini'aadanku waxa dhammaan waxyaalaha uu quuto
waa wax geed ka yimid ama geed ku nool weeye marka geedku waa nolosha koonkan weeye wax laga sheekeeyo ama halkan lagu soo koobo way ka badan tahay intaynu geed beerno ayaa nolosheennu fiicnaanaysaa geedku ha noqdo geed mirood ama ha noqdo geed kale oo nolosha dhinaceeda kale qofka bini'aadanka waxa uu ku neefsado hawada uu qaato waa waxa ka soo baxa geedaha weeye marka qofna ma noolaan karo geed la'aan sina markii loo fiiriyo marka inaan ka sheekeeyo koobo wax ka badan weeye waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto ugu baaqayaa noloshiinu geed waaye xoolaha aad dhaqanaysaan ma noolaan karaan geed la'aan idinku ma noolaan kartaan geed la'aan Soomaaliya ma noolaan karto geed la'aan roob ma helayso haddii dhulku xaaluf noqdo marka baaqa dawladda Soomaaliyeed golaha wasiirada madaxweynaha waxa weeye qof kasta oo Soomaaliya sidii uu sheegay inuu abuuro geed isla markaana xaqiijiyo geedka inuu abuuro kaliya maaha inuu baxo waa inuu xaqiijiyaa anigu geedkan beeray waa imaan doonaa ama shaqaalayga soo diri doona waa waraabinaya intii uu ka weynaanayo oo aan ka ogaanayo in geedkii aan beeray lagu nacfiyey oo uu geed noqday Muuse Cusmaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho